Laba wiil oo Soomaali ah oo walaalkood uu toogasho ku dilay saacado kadibna isagii la dilay. Subxaanallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Si aan u gudagalno dhacdadan iyo siday u dhacday, walaalahay saar sheer garee muuqaalkan si saaxiibo badan u gaaro una ducee marxuumka naguna soo biir mahadsanid. Wiilkan dhalinyarada oo lagu magacaabo Hanad isla markaana Soomaali ah ayaa habeenkii Jimcaha magaalada Kansas City gobolka Missouri ee dalka Mareykanka waxa uu ku dilay laba wiil oo walaalihiis ahaa xilli ay ka soo laabteen salaada taraawiixda oo masjidka ay ku tukanayeen. Labada wiil oo xaafidul Qur'aan ahaayeen uu midba mar jamaacada masjidka taraawiixda tujin jiray. Labada wiil ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Allah u naxariistee Cabdiwaxiid Cabdilcasiis oo 16 jir ahaa iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis oo 14 sano jir ahaa. Wiilashan ayaana waxa ay ahaayeen kuwo ka yar walaalkood ka weyn ee Hanad ee dilka u geystay, iyadoo Hanad oo dilka geystay ay booliisku saacado kadib markii uu walaalihiis dilay ay isna toogteen. Booliiska ayaa markii ay toogashadu dhacday kadib goobta uu falkaasi ka dhacay tagay, waxa ayna ugu tageen meydadka labada wiil oo ay xabado ku yaalaan isla markaana yaala dibadda apartment ay deganaayeen. Sidoo kale booliiska ayaa waxa ay sheegeen in Hanad oo 25 sano jir ah walaalna la ahaa wiilasha uu isagu toogashada u geystay labadiisa walaal ee ka yaraayeen isna saacado kadib ay booliisku toogteen kadib markii uu diiday in uu isku dhiibo booliiska ku raad joogeen, taasi oo keentay in la toogto oo ciidamadu ay dilaan. Hanad oo toogashada geystay ayaa sidoo kale ka hor inta aan la toogan u dhaartay dad eheladiisa ah oo ugu hanjabay in uu dili doono, balse ayba isagii booliisku dileen. Sida laga soo xigtay bulshada Soomaalida qaarkeed ee magaaladaasi degan, qoyskan ayaa horay ula kulmay dhacdooyin murugo leh, iyadoo hooyada iyo aabbaha labada wiil ee la dilay la sheegay in iyagana horay loogu dilay isla magaalada wiilasha lagu dilay wax ka yar 10 sano. Labada wiil ayaa ahaayeen kuwo aad looga jeclaa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo masjidkii ay markaasi ku tukan jireen, iyaga oo ahaa xaafidul Qur'aan salaadaha taraawiixda ka tujin jiray masjidka Al-Taqwa ee ku yaala magaalada Kansas City ee dalka Mareykanka. Dhacdadan ayaa ugub ku ah bulshada Soomaaliyeed ee magaaladaasi degan, iyagoo sheegay in naxdin ay arrintaasi ku beertay. Dadka qaarna waxa ay ku waramayaan in wiilka dilka geystay isla markaana walaalihiis dilay uu daroogo cabsanaa amaba uu daroogo isticmaali jiray.